munaasabaddan hadma sharafeedka ayaa mid lagu shaacilayo gudida ololaha doorashada ee beesha Arab Bari ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Munaasabadaasi waxaa ka hadlay madax dhaqameedka beesha Arab Bari, siyaasiyiin, dhalinyaro, haween, mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku matala beesha Arab Bari, waxayna cod dheer ku sheegeen cod iyo cududba inay la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxayna tilmaameen 7 sano madaxweyne Muuse Biixi Cabdi talada dalka hayay halkuu dhigay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa kulankan ballaaran ee ay maanta isugu yimaadeen beesha Arab Bari wuxuu ku saabsan yahay waa 3 qodob. 3 qodob ka u horeeya waxa weeye waxaad ka warqabtaan marka hore wadanka maanta in doorashooyinkii madaxtooyadu ay ka dhacayaan iyo tii ururadu. beesha Arab Bari codkeedii iyo cududeedii iyo magaceedii iyo manfaceediiba waxaynu ku tashanay marka hore inaynu xisbiga wadani isugu wada geyno. qodobka labaad inaynu shaacino gudidii beesha Arab Bari ololaha ama campaignka u gali lahaa xisbiga wadani ee beesha matali lahaa inaynu iyagana halkan aynu kaga dhawaaqno. qodobka saddexaad waxa weeyaan xafladii ballaadhnayd ee beeshu ay ku taageeri lahayd xisbiga wadani, ayadana xafladaasina way noo soo socotaayo ayadana in diyaar garowgeedii muxuu ahaa la sameeyo. ugu dambeynta waxaynu doonaynaa inaynu wacyigelin samayno oo dadkeenni fariinta aynu u diraynaa ay tahay inay u diyaar garoobaan in wadanka doorashooyinka ka dhacaya inay maanta isbedel inuu wadankii ka dhaco. xaaladda wadankeenu marayo waad ka warqabtaan 7 sano waxa wadanka maamulayay xisbiga kulmiye. xisbiga kulmiye 7 sano uu wadankeena maanta maamulayay waxa dhibaatooyin ka dhacay aynu ognahay markhaati madoonta u wada ah waynu isla wada ogsoonahay. sixir barara jira, muxuu ahaa colaadaa jira oo imika halkan marka qorilugud la gaaro waynu ognoo colaad baa ina kulaalayso, colaadaa jira, wadankii qaybo go'ay baa jira, muxuu ahaa kaabayaashii dhaqaalaha ee wadankeena hoos u dhacay baa jira. waxaas oo dhan waxa sabab u ah waxa weeyaan waa xukunka maanta jira sabab u ah inay waxaas oo dhan inagu dhacaan. marka taa bedelkeedii maxaynu kaga baxaynaa baa taala. waxa taa bedelkeedii aynu kaga baxaynaa chance baynu maanta haysanaa. chance-ka aynu haysano ah in wadankeennii muwaadiniin baynu nahay aynu badbaadino. oo maxay ku badbaadino? codkeena aynu ku badbaadino. oo codkeena ayaynu siinaynaa, waxaynu siinaynaa xisbiga wadani iyo Dr. Cabdiraxmaan ayaynu doonaynaa inaynu codkeena iyo cududeennaba ku midayno. waraabe naftiisana uma roona, laf guri taalana uma roona. xukuumadda maanta wadanka ka jirta wadanka iyo xaaladda ay muxuu ahaa gaarsiisana waynu ka dheregsanay. inagu haddaynu Arab nahayna anfacinaynaan ku qabin ayana way sugna. war ma jirtaa anfac maanta uu Arab Bari ku faano oo aynu xukuumadda ku haysanaa miyay jirtaa? ma jirto. anfac wadankeeniyo inagu yeynaan waxba helin. anfac wadankeeniyo aynu ku faano aynu leenahay maanta wadankeeni baa inoo toosan oo inoo hagaagsan oo toobiyo waxaan inoo haysta miyay jirtaa? ma jirto. mar haddaan intaasba jirin waxaynu u baahanay maanta wadankeeni chance ugu fiicnaa baynu haysanaa inaynu isbedel dhaba samayno. wax la isla og yahay uma baahna sheeg reerku maanta hadday saaxil tahay iyo hadday burcad tahay reerka la yiraahdo Arab Bari dhammaan wuxuu isku raacsan yahay inuu taageero xisbiga wadani. anagu waxaanu ka mid nahay uqaasha saaxil ka tirsan isbedelka cusub ee la doonayo inuu maanta hirgalana awoodda saaraya. maanta waxaanu ku ballanay oo go'aansanay oo halkan aanu maanta ka sheegaynaa inaanu cudud iyo codba isugu geyno haddaanu nahay Arab Bari xisbiga wadani. waxa maanta intan iyo in kan badanba laabteeda ay ka soo baxayaan oo ka soo burqanayaan dhammaan isbedelka cusub in la raaco oo codka la siiyo isbedelka
xisbiga wadani in la raaco dhammaan rag iyo dumarba beesha Arab Bari way isku raacsan tahay waxaanu leenahay xuduudda hal la siiyo xisbiga wadani wuxuu soo celinayaa jaceelkii iyo muxubbadii iyo nabadii ilaahay saana waa ka baryaynaa guusha ilaahay hayna siiyo odaga maanta dalka 7 sano joogay waxa laaliya wuxuu kordhiyay inuu maanta ku tilmaanaya garanaya ma ogin waxa laaliya wuxuu maanta ku kordhiyo la tilmaamo anigu garan maayo oo aan ahayn adayg iyo kala dir iyo kala qax aan ahayn ma ogin waxaanu leenahay xisbigaasaanu maanta xuduudda siinay awoodda siinay ninkii tala naga qaadayna ugu baaqaynaa marka hore muhiimaddu waxa weeyaan beesha Arab Bari ee Cabdullah Arable Cali Arable Cidmaan Arable iyo waxay caga ku qaataanba hadday tahay gobolka Togdheer degmada Kalbare degmada Saaxil iyo intay degaan hawdi iyo waqooyiba waxaanu ku tashanay haddaanu nahay Arab Bari inaanu xusbiga wadani cudud iyo arrin iyo adduunba siino اللي كمان هند مانتين إن الوضر كبيره يجينا هيبة وحين نشعل هاي أدان عقاشنا هاي مسؤولين تنانون هاي نين العيب ككينين يقول تيجي الله يسكحر عيد الله حل صارين سداي تاوج صباحه مدح الرقمية كبيرش عرب بري وكل شيء أو يسكر راعي دجان كيس ساحل يو تقدر يو داد مربع إن تاجران أو كبيران عد يعد لبضبع xisbiga wadani waa go'aan ka soo baxay shirkii weynaa ee Arab Bari maanta inta maqaaniyeenta joogtaba waxaanu gaarsiinay in ay ku beereen beesha Arab Bari xisbiga wadani oo soocaynka ma aha soo isku raacsanin beesha Arab Bari imanka mid ku soo beertay wadani ma aha haray u ahayd wax markii ay dhinac walba shirtay ay eegtay ee kulmiyana 7 sanadood qof ugu magacaabay dirita magacaabay la waayay waxay shirkiisu u geysay dhammaan inay wadani u codeeyaan oo soo saaraan xisbiga waxa weeye xafladani waa hordhac waxun baanu sheegaynaa in beeshii taas ku raacday xafladii weyneedna way dambaysaa shaqadu siday u soconaysana waxa mishiinkiya wadani xisbiga ragga hore ugu joogay madaxdiisa in la jooga gudida la magacaabay inta kalena waa la shaqaynaysaa reerku imanka wadani kuma soo biirin ee uu isugu soo biyo shubtay dhammaan inta uu ka tira leegay reerka Arab Bari la yiraahdaa maanta wixii markii hore ahaayay wixii kulmiyaha waxay isugu soo biyo shubteen xisbiga wadani ee isbedel doonka ah warsooyinka ma aha waxaan dadweynaha u sheegaynaa ama ummadda kale u sheegaynaa inuu reerka Arab Bari maanta uu dhammaan inta uu ka tira leeyahay uu yahay arrin iyo adduun cod iyo cadiyad bay uu ka tirsan yahay xisbiga wadani oo shaqaysay halkan aad iyo aad ugu badan tahay waxa laakiin kaga baxday markay waqabadkiisii iyo beesha masiirkiisii ay ka dhacarka weyday dalka tunkiisa iyo tagoogiisa ka eega wuxuu u qabtay ma jirto colaadda waa aragtaan rabashka waa aragtaan waa ogtiinoo taariikhdii 4 laga gudbay gawaarida qoriyaha saarnaan wadana 1992 iyo imanka magaalada dhexdeeda marmarayaan iyagoo calaamado reera leh oo beela ay kala wataan taariikh 30 sano laga joogana waynu ka gudubnay kulmiyaa maanta inagu soo celiyay beesha Arab Bari waxa ay ku tashatay inay taageero buuxda siiyaan xisbiga wadani iyagoo markii horena ku jiray imikana sii labanlaabay waynu badbaadinaynaa haddii ilaahay yidhaaho Arab baa badbaadi jiray marka xaaladuhu meesha adag ay marayaan dawladda Soomaaliland hubkii ugu horeeyay waxa dhiibay Arab oo ku xareeyay Birjeex waa taariikh qoran markii labaad beelaha inaga dhexdhexaad u ahaan jiray inagu uma doonano dawladaha manfac uma doonano laakiin qarannimada guud baynu aad u ilaalinaa maanta wax nool oo kulmiye ka tegay ciidda aynu ku taaganahay oo yana iib ku wada mooyaane ma jiraan iyo rag iyo dhul waxba inooma noola
ninkaasi dhudurda barkiisi waa la degay kii raacayna wuxuu ugu abaalguday fartaad dhexda ka qaniin in aynu cudud garab buuxa iyo gaashaan intaba aynu siino xisbi mucaaradka wadani waxaynu leenahay farda la isku hayo waxba la isma faanee de kulmiye hadii uu sanadkan tartan uu diyaar u yahay de banaankiinu taaganahay iskeeno aha dadkii ugu horeeyay ama toddobadii xubnood ee ugu horeeyay ee xisbiga wadani inuu ugu sahan tigay waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa iyadoo beeshu ay hore u ahayd xisbiga wadani in haddana xubnihii ku harsanaa xisbiga kulmiye ay maanta iyaguna inala garteen halka danteenu ku jirto ee aynu wax la wadaagi karno talada danta dalkuna ay ku jirto danta Arab Bari iyo danta reer Soomaaliland oo dhammaan ku jirta ay tahay xisbiga wadani gudoomiyihii degmada Kalbarre xisbiga kulmiye waxaan la shaqeynayay 14 sanadood waxaan maanta halkan ka cadeynayaa inaan si cad isaga casilay oo ka tagay oo ku wareegay xisbiga wadani ulana shaqeynayo si daacada oo hagarliya oo kalsooni oo firfircooni oo waliba dhiiran hadii maanta sahankaagii tolkaa oo dhow ku guuray waa wax ilaahay lagu mahadnaqo ku bushaarayso weynta Arab Bari kaga dhawaaqno waxa kale ku faraxsanahay in tolkay isugu yimi oo isugu soo wada biyo shubtay oo aanu maanta tolkii Arab Bari ee deganaa deegaamada gobolka Saaxil ka degmada Kalbarre degmada Burco iyo gobolka Daadmareyn guud ahaantiiba oo xaruntuna ay u tahay Burco inaanu isla wada qaadanay sidii cuqaashaydu halkan ay ka sheegeen inaanu dhisno Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo xisbiga wadani isbeddelka dalkana aanu qayb ka noqono horena aanu qayb u ahayn in badanna ku soo dadaalaynay laakiin guud ahaantayo dadka iyaga kala jooga Hargeysa Berbera bariga gobolka Saaxil waqooyiga Burco hawdka degmada Burco iyo Daadmareedba waxaan halkan ka cadeynaynaa in uqaasheeni iyo odayaasheeni markii ay taliyeen ay ku taliyeen in masiiriga siyaasiga ee dalku maanta uu ku jiro Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi in madaxweyne laga dhigo iyo xisbiga wadani isbeddelkana la taageero xisbiga wadani waxaan idin sheegayaa inuu ina jecel yahay oo dalka jecel yahay oo dadka jecel yahay saacad gudaheed baa maalin waxa ku soo wada baxday 5 digreeto ina siiyay xisbiga wadani 7 sanadood oo Muuse haystayna hal digreeto ka weyna aga baryaaya waa wadani waqalka daaya waa wadani waaga baryaaya waa wadani waqalka daaya waa wadani beeshaara barina waa wadani ku bushaaraysta markii hore uu kala qaybsanaayo in kulmiye ku jirtay in wadani ku jirta baan ahayn laakiin maanta waxaan nahay dhamaantay waa wadani wadanina guusha gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil waxa uu hogaamin doona natiijada doorashada Arab Bari inaan ahayn awliyaduna meeshii sahaamiso waa meel aan yarayn marka awliyadu waxay sahaamisay inay dhisto musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo xisbigii wadani taasa cadeynaysa markaas in reerku sanadkan maanta ah hogaanka iyo majaraha u qaban doonaan doorashada ka dhici doonta dalka 13 November Saudiya Roman hiyana xisbiga wadani codayno magtiisa waxba noo oolin waxna aanan ka ahayn waxna aan la nooga ogeyn maanta waxaynu nahay isbedel doon waxaynu doonaynaa inaynu isbedel samaysano wadani maanta waa ninka kaliya ee maanta Arab Bari wuxuu yahay la socda ee og ee abaalka inoogu hayn doona inana yaqaana laakiin Muuse inama yaqaano waxaan ku yiri dadka farta oo dhexda ka qaninayaynu kamid ahayn maanta waxaan leeyahay aynu soo dhaweyno wadani caalamiin maanta gulbay tahay sharaf bay tahay inteena maanta halkan suuti oo wadanaya wada taageersan gulbay tahay aan ogahay in aynu halkan wada marno aynu ka biya keeno waa ay guushu soo shwato waxa weeyaan maanta in badan baan ugu baaqaynay walalka macaan isugu soo urura ilaahay baa isugu keenay waxaanu leenahay midhaha aynu beernay ilaahay guusheeda hayna siiyo gaaran waanu haynaa uu gudoomiye ugu horeeyay iyo dhalinyaradii odayaasha
waxaan xasuusanaa maalinka halkaa casuumadda noogu samayseen eenu wadnay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Marwo Milga Sanbalooshe markaa abaalkaasna horta waan idii haynaayo meeshii aad idinku nagu soo dhaweyseen annaguna aan 4 qof ahayn maanta Arab bari iyo Arab galbeed oo wada joogaan dhammaanteedna isbeddelkeenu diyaar u nahay aad iyo aadna waxaan idinka mahadnaqayaa dareenka dadkii halkan ka hadlay odayaashii cuqaashii guddoomiyihii iska casiray degmada Kalbarre xisbiga kulmiye u qaabilsanaa cid kastoo halkan ka hashay hadalkeedii baan dhooxayay dareenkiina iyo sidaad ugu heelantihiin isbeddelka waa wax aad loogu farxo Arab bari oo bilaa matalaadii insha Allah dhowr iyo 50 cisho dowladdan fashilmatayna inaga hadhay insha Allah tacaala inoogu dambayso Arab bari oo bilaa matalaada waan arkaynaa reerka baaxadu leeyahay iyo deegaanku leeyahay maanta haddii in la wada shaqeeyo la isla qaatay alxamdulillahi rabbil caalamiin midda waan taakiidinaya reerkana ka dhawaajiyay jumca raac ma nihin waxaynu nahay dad xisbiga leh oo 10 sano iyo ka badan xisbiga soo dhisayay waana taata keentay in subax qurashan digreeto la inagu wada magacaabo maanta halkan aynu joogno Arab bari ku shirmaayo waxa ku shiraaya dadkii jaangoynayay talada Arab bari baynu hortanahay inteennanu xafladda Arab bari ee dhoolatusadka ku biirid maaha waa dhoolatusad xafladda dhoolatusadka way noo dhici doontaa waan xaadirin doonaa guddida halkan way soo taag kow Cabdisalaam Maxamuud Ducaale oo ah guddoomiye Sheekh Cali Cabdiraxmaan Xuseen oo ah guddoomiye ku-xigeen number 3 Cabdilaahi Xasan Macallin oo isaguna ah xogayaha guddida Nuux Jibriil Xaaji Ibraahim weeyaan kaasi numberka 5 Colaad Sheekh Aadan Abakar 6 Cabdilaahi Khayran Aleeye number 7 Cabdirasaaq Axmed Yuusuf Axmed Cismaan Cilaaye Ayaan Cawil Cabdi Cashuur 10 Aamina Shida Cali 12 Axmed Saki Cilmi Yuusuf Ciise 12 Maxamed Aadan Maxamed Aydid Xirsi Maxamed iyo Nimca Cismaan Maxamuud Cabdi Xariir Ibraahim 15 xubnood waa 15kii guddida fulinta gobolka Togdheer Cabdirasaaq Koronto Media magaalada Burco